بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo saameynta togan ee uu leeyahay baraha bulshadu waa aalad ay ku kulmaan kumanaan qof oo kala jooga daafaha dunida min daraf ilaa daraf dadkaas ayuu isku keenaa dadkaasina way kulmaan faa'iidooyinka ugu waaweyn ee oran karno ugu keena waxa kamid ah dad meelo kala duwan jooga inuu isku keenay oo hal goob ama hal qol oo isku keenay marka waxaan rabaa dhowr qodob oo aad kaga faa'iideysan karto baraha bulshada inaan tilmaamo qodobka koowaad isku day baraha bulshada intaad ku jirto inaad wax ka faa'iideysato su'aal ahaan inaad wax ka dhigato sida kolba hadda doonayso xirfad inaad barato hadda doonayso inaad aqoon kala barato iyo hadda doonayso wax cusub oo kale inaad timaado isku day inaad wax ka barato lambar 2 waxaad isku xidhaa dadka inta badan waxa doonayso aad ka heli karto tusaale ahaan waxa jira pages ama Facebook iyo Twitter iyo Instagram iyo meelahaas dad waxa aad rabto si gaar ah u qora ama soo duuba ama waxyaabaha la midka marka sameeya marka isku day dadka inaad si gaar ah ugu xidhanto aad kana faa'iideysato ta kale waxa isku daydaa waxa wanaagsan ee dadku sheegayaan ama dadku qorayaan inaad baahiso way wax kasta inuu baahinayno ilaahay subhanahu wa ta'ala akhiro nagala xisaabtami doona marka waxaan jeclahay baraha bulshada guud ahaan inuu ka faa'iideysano wax faa'iido leh inuu ka faa'iideysano dooc doona ha ahaado aad u mahadsantiin